magaalada Gaalkacyo oo kamid ah magaalooyinka ugu badan Soomaaliya magaalada sida gaarka lagu tilmaami karo inay tahay magaalo kaligeed laba u kala qaybsan oo labadiina ay ka tirsan yihiin laba maamul goboleed ama dawlad goboleed oo kala duwan maalintii 15 May ee dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo labada dhinacba ka tirsan oo isxilqaantay isu tageen oo muddana ay dadaal soo wadeen kadibna maalintaas waxa dhacday in ciyaar kubadda cagta ah oo labadii dhinacba kooxa ka socda ay labadii garoon ee magaalada labada dhinac ay ka dhaceen kuwaas oo ujeedku u ahaa in isdhexgal iyo midnimo iyo wada noolaansho la dhaxdhigo dhalinyarada iyo in la dhiirigeliyo ummadda ku dhaqan magaalada Gaalkacyo marka ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhacday oo labada dhinac dadweynihii laftoodii ay labada dhinac inta ka yimaadeen garoomadii isugu tageen oo ciyaarta ay daawanayeen runtii waa wax la dhihi karo dadaal taariikhi ah ayuu ahaa oo keenay in maaragtay laba bulsho oo muddo kala xirnaa ay suura gasho in maalintaas 15 May inta isku yimaadaan garoon ku wada ciyaaraan dadweynihii wada daawadaan hadhowna si nabad ah halkaas ay uga tagaan dhalinyaroy waliba dhalinyarada reer Gaalkacyo waxaan ii sheegayaa hadalka marka aan leeyahay hatta kama fakarayaan in qudbaynaay laakiin runtii waxaan inii taala halgan dheer oo kii ka dhib badan oo ka xanuun badan oo ka wasaq badan ayaa hadda ina sugaadin waayo waxa la isku haystaa oo dib ku dhex yaala waa mustaqbalkiinii waay marka halganka real muxuu yahay adinka waa halganka maskaxda hadda uu ka dhawaajiyay inaan haday tahadlayay waa gumaysiga maskaxda nala ka gumaystay oo nolol sheegay in nin dhalinyaro ee Soomaaliyeed qoray intuu qaato oo nin kale oo dhalinyaro ee Soomaaliyeed oo xabad ku dhufto hadii oo la weydiiyana sababta ugu dhuftay aan la garanaynin sababtii oo aan ahayn waa reehib